shirkaddan Somali National Fish Company waa shirkad kalluumaysi oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed. marka taariikhdeedu waa horeysay maaragtay 2002 ayaa la asaasay ilaa intii ka dambeysay waa shaqaynaysay marba xaaladda soo mareysay ayada shaqadeedu in maaragtay ay dhiirigeliso wax soo saarka maaragtay ee dalka badda laga soo saaro ayay warshadan u furtay. warshadan marka waxa weeye waxay process gareysaa malayga noocyadiisa argoosatada farmagoda autobuska alla wixii badda laga soo saaro. cayn kasta waxay leedahay nooc loo process gareeyo marka noocaasna processku wuxuu ku salaysan yahay dalabaadka oo dadka maaragtay doonaya in maaragtay ay badeecadan qaataan. badeecada laba nooc waa loo process gareeyaa mid for export ah oo dibadda loo beecegeeyo iyo mid loogu talagalay suuqa gudaha. marka mid walba waxay leedahay habkeeda loo raaco oo lagu process gareeyo. shaqooyinka hadda aad ku aragseen warshada oo ka socda qaamka processka hadda loo wado dalab bay ku yimaadeen noqday dalab yimid oo la yiri sida aan loo ka dhigo weeyo waxa weeye lagu process gareynayo. marka alaabta tan exportiga dibadda loo dhoofiyaa wixii gudaha loogu talagalay gudaha loo qaybiyaa. malayga sidiisaba badda markii laga qabanayo nimanka doonyaha wata ay soo qabanayaan badda wuxuu ku haystaa temperature isagu noloshiisu ay ku salaysan tahay. markii laga soo bixiyo badda ninka soo qabta wuxuu geliyaa baraf box baraf baa la gashaa macnaha si maaragtay uusan u xumaan uusan u halaabin uusan u qaashin malayga. marka barafkaas la soo gashaa barafka lagu wadaa ilaa laga soo gasho oo maaragtay qaboojiye weyn oo plus freezer oo -40 oo kaleeto ayaa la geeyaa markii la qalajinayo. -40gaas ama 40kaas macnaheedu waxa weeye haddii la geeyo halkaas qabowga bacteria iyo wixii maaragtay looga cabsanayo dhan waa ka nabadgelaya. marka halkaas lagu haynaya markii -40ga maaragtay oo lagu adkeeyo dhagax looga dhigo ayaa laga soo bixinaya waxa la geeyaa mid kaleeto oo -20 ah ama -20 ayaa lagu xareeyaa store-kaas marka la isticmaalayo laga soo bixiyaa oo ama dibadda loo dhoofiyaa ama gudaha loo qaybshaa dadka. caqabado waxa weeye waa dibadda iyo gudahaba maaragtay way yaalaan. dibadda haddaan ka hormaro waxa weeye suuqyada oo adduunka annaga oo badeecadeena Soomaaliya haddaanu nahay markadeena oo maaragtay markii la geeyo suuqyada maaragtay waa laga tirtiraayo dadka aan ka gadanaa markooyin kale u samaysta oo dalal kale u iibgeysta. marka meeshaas waxa weeye annaga suuq waa nagaga maqan macnihiisu waxa weeye meesha adduunka uu waxgeysto oo qiimaha uu ku leeyahay malayga annagu ma tegi karin hadda ka hor. haddaan qabaqaabadeeda ku jirnaa haddaan la idmo alaabteena maaragtay oo male shahaado caalamiya suuqyada markii aanu geyno shahaadooyinka la wato ayaa la isku fallistaa. hadda laakiin alxamdulillah waxa weeye shahaado caalamiyana waa helnay kuwa kaloo ka sii sarreeya midda tanna waa u sii soconaa. marka suuqyada waxaanu rajaynaynaa moogtahay inaanu qaybta koowaad ka galno wixii hadda ka dambeeya. gudaha hadde waxa weeye caqabadaha gudaha waa iska badan yihiin. waxa weeye malayga markii badda laga soo saaro oo bannaanka la keeno wuxuu u baahan yahay xanaano storage fiican oo qabow iyo warshado baraf iyo wixii ma jiraan. dadkii marka waxaa laga iibinayaa isagoo maaragtay 2 maalmood ama 20 saacadood bannaanka yaalay malaydi ayaa dadkii laga iibinayaa. marka waxyaabo badan buu keeni karaa jir uu keeni karaa.